بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن أو نكسن داوديال ميل والبوء جوكتان. هالكني ومرقاتي تي في ومركلة iyo barnaamijkeena tabinta tooska ah oo aynu kaga hadlayno doorashooyinka ka soconaya wadanka Turkiga codtirinta sidaan horeyba barnaamijkeena idin kugu sheegnay waa ay bilaabatay waxaana soconaya natiijooyinka hordhaca ah. Haddaba halkan waa goobta sida rasmiga ah tooska loogu soo tabinayo codadka iyo sida loo kala helayo. Hadda sida muuqata madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Erdogan hadda waxa uu ka horeeyaa codad dan 2.5 boqolkiiba. ninkan aad u jeedaan waa Kemal Kılıçdaroğlu isagana waxa uu helay ilaa hadda codadka hordhaca loo tiriyay 1.45 boqolkiiba. Ogaan isna waxa uu helay 5.36 waa musharaxii saddexaad. afraad oo Muharram Inch isaga oo tanaasulay laakiin la sheegay wareegga koobaad waxa uu helay in loo tirin doono waxa uu helay eber dhibic 4 boqolkiiba. Marka sida muuqata doorashada xoogeeda iyo labada qof oo isku haya waa madaxweyne Erdogan iyo sidoo kale Kemal Kılıçdaroğlu. Baarlamaanka marka aan fiirino iyo codadka la dhibtay ilaa hadda AK Party ayaa ku horeeya oo codad badan helay sida shaxda ka muuqata 1.40 boqolkiiba. Markaan usoo laabano marka madaxweyne Erdogan waxa uu ku horeeyaa 4 gobol. Calaamada hurdiga ah ama jaalaha aad u jeedaan waxa weeyaan gobolada uu ku horeeyo madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan oo isagu yani uu ku awood sareeyo codadkooda. Calaamada kale ee gaduudka ahna waxa ku horeeya musharaxa mucaaradka Kemal Kılıçdaroğlu. Laakiin hadda markii la fiiriyo codadkan 54 gobol ee uu ku horeeyo madaxweyne Erdogan ilaa hadda sida hordhac loo sheegay waxa codka siisay madaxweyne Erdogan 12,293,462. Kılıçdaroğlu isaguna 27 gobol ayuu haystaa oo uu ku horeeyo codadkooda waxaana codka siiyay 8,929,692 oo qof. gobolada ugu muhiimsan marka oo hadda in la tiriyo u baahan ama in la ogaado u baahan waxa weeyaan Istanbul iyo Ankara oo hadda meelaha ugu daran oo yani cidii ku awood badisaahi ay guulo fiican rajeynayso maadaama xisbiga AK Party kaliya aanu raadinaynin in uu hogaamiyo madaxtinimada kaliya ee sidoo kale xisbiga uu rabo inuu dib u soo ceshto goboladii uu lumiyay. sababtoo tahay hadda mucaaradka ayaa maamulaya Istanbul iyo Ankara iyo gobolo kale oo badan oo doorashadii hore ay ku qaateen in uu dib uga soo ceshto ayuu rabaa. waxaan fiirinaynaa hadda gobolkan waa Istanbul sida muuqata madaxweyne Erdogan wax yar ayuu ku horeeyaa doorashadeeda boqolkiiba 47.56 ayuu ka haystaa Istanbul. Kemal ayaa isaguna waxa uu haystaa sidoo kale boqolkiiba 47.40. yacni meesha barbar dhac ayay ku socotaa marka la eego magaalada Istanbul oo ah magaalo aad u weyn. waayahay waxaan fiirinaynaa marka magaalada Ankara oo ah caasimada wadanka Turkiga. Ankara madaxweyne Erdogan waxa uu ka haystaa oo uga codeeyay boqolkiiba 50.11 halka Kemal oo isna ka haysto Ankara 42.73. magaalooyinka kale ee sida weyn isha loogu hayo waxaa kamid ah haddii aanu eegno magaalada mucaaradka yani magaalada hadda Izmir oo kale waa meel ku badnaayeen mucaaradka xoogiisa oo yani xisbiga AK Party rajo lagama qabin in uu codad inta ama codad inuu ka helo bal aynu eegno Erdogan codadka uu ka helay gobolkan hadda ilaa iyo sida muuqata madaxweyne Erdogan codadka uu ka helay gobolka mucaaradka waa 32.63 waxaa ku horeeyo Kemal Kılıçdaroğlu waxa uu helay 61.99 boqolkiiba. yacni tirada dadka hadda gobolkaasi ka codeysay waxaa Kemal u codeysay 745,000 oo qof 460 halka madaxweyne Erdoganna
ay u codeeyeen 329,425 qof. yacni gobolkan izmir waaba la ogaabo, izmir xataa lisma dhehinin akbarti ayaa tiri intaan la ka heli doono, waayo waxa ay yihiin dad yacni cilmaaniyiin u badan oo haddana aad u taageersan dhaqanka noocaas ah. waayahay waxaan fiirinaynaa gobolada kale ee iyaguna aadka loogu dagaalamayo sida hadda Samsun oo kale. Samsun madaxweyne Erdogan ayaa ku horeeya 64% Kamalna waxa uu ka wataa gobolkan 29.3%. gobolada aad ay u badan yihiin waa 81 gobol. Cusmaaniya oo kale markii la eego madaxweynaha wadanka Turkiga Erdogan ayaa ku horeeya. gobolka kale ee isagana la yiraahdo Bartin waxaa ku horeeyay madaxweyne Erdogan. yacni midabkan jaalaha oo dhan ee idin muuqda waxaa ku horeeya madaxweyne Erdogan. sidaas daraadeed marka wili doorashadu waa ay socotaa oo yacni waxaa soconaya tirinta codadka. waxaa la tirinayaa codadka iyo sida loo kala helo iyadoo oo la filayo in saacado kadib lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah iyo waliba cidda sida rasmiga ah ugu guuleysatay xilka madaxtinimo ee wadanka Turkiga iyo waliba sidoo kale cidda ku guuleysatay kuraasta baarlamaanka ama cidda ku badnaan doonta xisbiyada, maadaama 25 xisbi ay baarlamaanka oo 600 oo kursi ka kooban ay tartan adag ku jiraan. aad ayaa shaashadaha loogu wada maqan yahay oo guud ahaan dadka Turkiga waxaad moodaa inaysan wax dhaqdhaqaaq lahayn. qof walba gurigiisii ayuu galay, waxa uu sugayaa natiijada. TV-ga ayuu hor fadhiyaa, qof walbana qofka uu rabo in uu soo baxo ayuu qalbiga uga duceynayaa. laakiin daqiiqado kadib waxaa la filayaa guud ahaan dalka Turkiga isbedelo waaweyn inay ka dhacaan, in lagu dhawaaqo natiijada kama dambaysta ah cidda ku guuleysatay. waliba guushu waxa la doonayaa codadka la tiriyo 50+1 ayay noqonaysaa guusha. 50+1 codadka dhan marka la isku keeno qofkaas ayaa guusha ay raaci doontaa. haddii ay dhacdo marka in aan la guuleysan oo yacni doorashadan la isku mari waayo maanta dhacday 28 bishan ayaa la qaban doonaa doorasho labaad oo ah wareegii labaad. wareegga labaad marka waxaa loo qaban doonaa oo kaliya labada musharax waa Erdogan iyo sidoo kale Kamal Kılıçdaroğlu. oo waaba haddii hadda midda caawa la tirinayo aysan wax natiijo ah ka imaan oo barbardhac ama wixii la mid ay noqoto. laakiin waxaa la rajeynayaa in madaxweyne Erdogan uu ku soo baxo doorashadan. waa sida ay rajeynayaan taageerayaasha Erdogan iyo sidoo kale qudhiisa iyo dunida islaamkaba oo aad u taageersan madaxweynaha wadanka Turkiga. haddaba wili waa ay socotaa hawsha daawadayaal. wixii ku soo kordha sidan ayaan idinku soo gudbin doonaa. bal nala socda oo subscribe saara, gambaleelka furta si warbixin walba aan ka soo gudbino doorashada aad ula socotaan. mahadsanidin.